السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنو وناكسنا سعبتين ميكستو جوكتان كسو دواذا برنامج كيني عيارها وحانو كويقي دونا قضبط دورها او كساب صندوني كبداعكتا haddii aanagu cusub tahay daawada fadlan subscribe inoo saar siina sheer garay saaxiibadiinana la wadaaga dhamaantiinba aanu ku bilownay kooxda Manchester City ayaa heshiis cusub ka saxiixatay xidiga garabka ugu ciyaaray Riyad Mahrez oo 30 jir ayaa qalinka ku duubay heshiis cusub oo 2 sano ah oo uu ku joogi doono kooxda Manchester City ilaa xagga 2025 xidiga Mahrez ayaa ka mid noqday xidiga laf dhabarta oo ah kooxda Pep Guardiola tan ilaa markii uu kooxda kaga soo biiray Leicester City sanadkii 2018 xidiga Mahrez ayaa Man City la jooga xilli ciyaareedkii afraad waxaana uu kooxda kula guuleystay 3 koob oo Premier League iyo 3 koob oo koobka maxalliga xidiga Mahrez ayaa kooxda u ciyaaray 189 kulan waxaana uu dhaliyay 63 gool halka uu caawi ka noqday 45 kale isla dhinaca kale kooxda Chelsea ayaa xaqiijisay inay dhameystirtay saxiixa xidiga daafac ka ciyaara ee Koulibaly kaas oo kala soo wareegtay kooxda Napoli. Koulibaly ayaa noqday saxiixii labaad ee ay sameysay kooxda Thomas Tuchel isagoo kooxda uga soo biiray heshiis 4 sano ah oo uu ku joogi doono Stamford Bridge. xidiga Koulibaly ayaa kooxda Chelsea ku soo biiray kadib sanado badan oo uu joogay kooxda Napoli una ciyaaray kulamo badan oo muhiim ah. kabtanka xulka Senegal ayaa xidiga Sterling kula biiray kooxda Chelsea isagoo ka mid noqday saxiixyada ay sameysay kooxda Chelsea suuqa xagaagan. Koulibaly ayaa la kulmay saaxiibadiisa cusub isagoo la qaadan doono tababarka ay isku diyaarinayaan xilli ciyaareedka cusub. isla sidoo kale Manchester United ayaa diidan inay ka quusato saxiixa Frenkie de Jong inkastoo ay jiraan warar sheegay inuu xidiga khadka dhexe u sheegay Barcelona inuu doonaynin inuu ku biiro Manchester United kadib toddobaadyo wada hadalo ah. kooxda Manchester United ayaa Barcelona kala heshiisay saxiixa xidiga iyagoo ka bixin doono lacag dhan 75 milyan oo euro. si kastaba heshiiska ayaan u dhaweyn inuu dhaco maadaama uu de Jong diidan yahay inuu ku biiro kooxda Manchester United. wargeyska Sport ayaa sheegay in wakiilka xidigu la xiriiray maamulka Manchester United una sheegay inay waqtigood isaga lumin maadaama uuna de Jong doonaynin inuu ku soo biiro kooxda. waxaa intaasi dheer in xidiga u sheegay saaxiibadiisa Barcelona inaynan jirin suurtagalnimada uu ugu tagi karo Barcelona ugana biiri karo Manchester United. laakiin haatan wargeyska The Sun ayaa sheegay inay maamulka Manchester United iska indhatirayaan warkaas isla markaasna ay weli ku adkeysanayaan helitaanka saxiixa xidiga. isla sidoo kale kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay haatan diiradda saari doonto saxiixa xidiga daafac ugu ciyaara kooxda Sevilla ee Jules Koundé. Barcelona ayaa suuqa ugu jirta daafac dhexe iyadoo uu Xavi dhisay koox u tartami karta koobka xilli ciyaareedka cusub. kooxda Xavi ayaa ilaa haatan sameysay 3 saxiix waxaana ay doonaysaa inay la soo saxiixato xidig daafac dhexe ka ciyaar inta lagu jiro suuqa xagaagan kadib markii ay dhameystirtay saxiixa Roberto Lewandowski. Barcelona ayaa haatan dareenkeeda u jeedinaysa sidii ay ula soo saxiixan lahayd daafac dhexe. kooxda Barcelona ayaa isku diyaarinaysa inay dalab ka gudbiso saxiixa daafac dhexe ee kooxda Sevilla ee Jules Koundé kaas oo ay doonayaan inay ku xoojiyaan daafac dhexe. isla xidiga Diego Jota ayaa la xaqiijiyay inuu seegi doono kulanka Community Shield-ga ee ay Liverpool la ciyaari doonto Manchester City kadib markii ay ku guuleysteen FA Cup xilli ciyaareedkii hore. Liverpool ayaa la ciyaari doonto Manchester City kulanka Community Shield-ga ee ka dhici doona garoonka King Power Stadium 30 bishan lagu jiro. xidiga 25 jirka ayaa ku dhaawacmay tababarka isku diyaarinta kooxdiisa isagoo aan ilaa haatan wax kulan oo ciyaarin kulamada ay kooxdu isku diyaarinayso xilli ciyaareedka cusub. xidiga Jota ayaa seegay ilaa haatan 2 kulan ee ay ciyaartay Liverpool waxaana uu kaloo sheegay inuu xidiga sidoo kale seegi doono kulanka Community Shield-ga. sidoo kale kooxda Barcelona ayaa xaqiijisay inay saxiixa Roberto Lewandowski kala heshiisay kooxda Bayern Munich kadib wada hadalo muddo dheer socday. Barcelona ayaa ogolaatay inay bixiso lacagta ay doonayso Bayern Munich taas oo keentay inay dhameystirto saxiixa xidiga reer Poland. xidiga Roberto Lewandowski ayaa haatan u duulay dalka USA halkaas oo uu kula kulmi doono saaxiibadiisa cusub isla markaasna tijaabada caafimaad u mari doono kooxda. warkan ayaa imaanaya kadib markii ay Bayern Munich sidoo kale xaqiijisay inay xidiga Roberto Lewandowski ka iibisay kooxda Barcelona. intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaah.